السلام عليكم دمانتي وسلامتين أن أحرر فاليرنا maanta ka bixiyo xaalad wadan ku sugan yahay wadanku waa qasan yahay runtii aad buu qasan yahay xaalad madaxda ku kulansan magaalada Garowe oo ka mid yahay madaxweynaha goboleedka Puntland kan goboleedka Jubbaland kan koonfur galbeed iyo madaxweynaha Soomaaliyeed Xasan Sheekh Maxamuud waxa ay dhabtii damacsan yihiin si rasmi ah oo qoto dheer cid u haysa oo maanta lifaaqka ka jirto in cid kasta ra'yigeeda iyo xaalad soo aragtay ka dhiibata mooyee laakiin waxa aad maanta u foolxun in qowm hal luqad ku hadla hal dhaqan leh diin ka siman midab ka siman aanan garanayn waxa isku khilaafaan except waxaan ka ahayn awowgay baa la oran jiray hebel iyo anaa inay hebela oo iyadana wax micno badan inay sameynaysa lamaanka marka waxaan qubanahay showga maanta in afarta madaxweyne ay Soomaali isugu timaado iyadoo macnaha Soomaali waa iska warqabnaa marka la Soomaali mid baan inta qurbaha joogta inta wadanka gudihiisa joogta inta meel kasta joogta وأغنى Soomaali wadad walaalaha wadadiisu keeno dee iska jiri kartaa khilaaf xagga goboleysiga ah oo gobolka kale waxa macno ahayn marka caalamka loo fiiriso waxa loo ku dayano oo aan fiirino dunida qaabka u nooshahay tusaale caawa waxaan soo qaato India intiina badan laga sheekeynaayo waa taqaana wadal aad u weyn wadal haddii Ilaahay ku raaxay inta soo qomidada ku nooshahay kala luqada ah kala diima ah kala dhaqan ah meelaha qaar kala aragti duwan oo aan isku aragti ahayn isku waji iyo isku mid aan ahayn oo kala mid duwan haddana dadkaas oo idil hal mid bay ku midaysan yihiin waxay tahay dan lagu midoobo ومت الحمد لله إله ونيدوي وحنو لمنا حتى ما أراك رو لمنا قومية هندي كم حتى لمنا ويلا مومباي وحكون 19 مليون so حنا 10% of مومباي 2 مليون 10% of مومباي right بركة 8 مليون أو 19 مليون حوالي له يا حاول something disgusting أدلوغنا حاول أدلوغنا حاول dhalinyarada Soomaaliyeed hal taran soo jeedin lahaa taladaas waxay tahay namaara odayaashu wax kasta isku qabsadaan mar kasta ay keenaan xaalad kasta ay awraan odayaashu saxda annagu aanu mujirno midow aanu generation ugu xiga aanu u horseedno haddii Ilaahay ku raaxo qurux aanu u horseedno nolol wanaagsan aanu u horseedno jacayl أنا نسكت أنا كفوجنا ميلي واحد يودع كيني أو كوي كتاعي إنه هبل معنا بدنا نصنعش هبل واحد انتي وحاه هاي هبل وجه بدون خير بدناها سنة الله كورابي يدين حنا هنا مش من الله جي ودنا هبل ده يشرح قديم كان شيء والله وحي حتى أنا وجدت إيمان إني تريني إنك اللي حق يتشكر يعدي رسمي ولا إنه هبل باليه هذا يوقف أكتر سنة أدو واحد معنا بدنا مش شيء صار هذا دو كم رقم واحد ويلش إنسانها وعقول لها إلا السوق كرش تاجو أو السوق معينه قبليسي يمكن إلا قبله example نيكي وقوي قلبي كسوق كذي نقول وقوي قلبي هذا تاجره نيكي مودو كذي نمودو تاجره ما حنا يضو قبل كيسكن إلا سعوية وأنصر أخاك الظالم أو مظلوم من رسول رسولك عليه الصلاة والسلام أولاً كان يجوا كرة جوركا مرة بويه يا أنت إذا كان مصيبة لا هذا ما هي ستة وعرفني هذا أو جدّو وظلمي بتكلم يد تكوري بتكلم يسري يجوا رميسترنا بقرة أو كل الدين أو كل رقنا كل الديانة الله ده هاي إن هذا بمونا somehow ونوع ظلمي كم ظلمي اللي هو النبي أدب النبي عز وجل عقبتي سنة وحنت على كل شيء كمان الحمد لله إله ده مسلم أنا قال الحمد لله إله أنا قال
mid ah oo dhinac kasta ka midaysan waxaa nagu jira waa gacanta shisheeye gacanta shisheeye waxaan ugu hortegi karnaa afkaarta yararka wasaqda ay ka faa'iidaysanayaan inaanu ka midoono oo aanu diidno waa inaanu diidnaa qabyaaladda waa inaanu diidnaa qaadka mainly yani lobin qaadka waa daraagada dhantaan washa qaadka Soomaaliya loo ogolaa xagga ogolaa daraagada kokainka iyo nikotiinka waliba israac laga hadlaa qaadku foolxun time ku dilaya fikirku dilaya raynimadu dilaya dadnimadu dilaya waana geed ay gaalada noo aragtay waa geed ay istiraadkan activity-ga ku jira iyo kuleelka ku jira dhanka ay leeyihiin waa lagu siibi karaa so iyaga maslaxad baa ugu jirta by the way insha Allah videoga xiga iyo taxanaha waa arki doonaa laakiin anigu dhalinyarada waxaan leeyahay alla midoobo midnimo assalaamu alaykum